Ku soo dhawaada barnaamijkii aynu uga hadli jirnay deegaanka. Maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuca kaymaha. Sida aan ka soo xigtay buug uu qoray Douglas Stapler oo ka tirsan Jaamacadda Colorado ee waddanka Maraykanka, ahna khabiir ku takhasusay culuumta deegaanka. Qoraagani waxa uu qoray buugga la yiraahdo Conserving Environment ee soo baxay sanadkii 2006. Wuxuu qoraagani sheegay in kaymaha adduunku ay soo food saartay burbur baaxad weyn, waxaana dabar go'ay 3/4 kaymihii adduunka. Intooda badan kaymaha adduunka waxaa la jaray qarnigan aynu ku jirno. Meelaha kaymuhu ay badbaadeen adduunka aynu ku noolnahay waxaa ka mid ah waddamada Ruushka, Kanada iyo Brazil. Waxaase la yaab ah in waddanka Maraykanka kaymihii loogu yimi 95% ay dabar go'een. Macnaha kaymihii originalka ahaa ee waddankanu gaarka u ahaa way dabar go'een 95%. Waxaa keliya oo kaymihii dabiiciga ahaa ka badbaaday waddanka Maraykanka waa 5% oo keliya. Waxaana arrinkan loo sababeeyey waddooyinka freeway-yada loo yaqaano ee tirada badan ee la mariyey dhulkii kaymuhu ku yiileen. Adduunkan aynu ku noolahay dhammaanba kaymihii waxaa ku socda dabar go' aad u weyn. Qiyaas la sameeyeyna waxaa lagu sheegay in 2.5 hektar oo kaymo ah la jaro ilbiriqsigiiba, taasoo u dhiganta 100 hektar oo kaymo ah daqiiqadiiba. Halkii maalinna qiyaastu waxay sheegtay 214,000 oo hektar oo kaymo ah in la jaro. Qiyaastaas oo bad ahaan ka weyn magaalada New York ee waddanka Maraykanka. Haddaba waa sidee kaymaha waddankeena Soomaaliya? Sideyse u saamaysay xaalufinta dhirtu? Intii u dhaxaysay sanadihii 1990 ilaa 2000 waxaa waddankeenu lumiyey celcelis ahaan 76,700 oo hektar oo kaymo ah. Waxaana sidaa sheegtay hay'adda Greenpeace ee waddanka Maraykanka laga leeyahay. Intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2005 tirada hoos u dhaca ku yimi kaymaha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay gaartay 10.4%, taasoo keeni karta khataro caafimaad. Kaymaha oo la dabar gooyaa waxa ay kordhisaa caafimaad darro iyo in cudurro badani faafaan. Kaymuhu waxa ay hayaan nooc bakteeriyada xanuunada ka dhashaan ah oo loo yaqaan pathogens. Haddaba markii dhulka kaymaha laga jaro oo dhulku meel bannaan noqdo, waxaa dhacda in bakteeriyada pathogensku ay soo raacdo biyaha iyo daadadka markii ay roobku da'aan. Xanuunada ka dhasha biyaha waxaa ka mid ah xanuunka malaariyada ee loo yaqaano duumada. Daraasad lagu sameeyey dhul 80% laga xaalufiyey dhirta, waxaa lagu ogaaday in dhulka kaymaha laga xaalufiyey uu ka kaneeco badan yahay dhulka aan dhirta laga jarin. Kaneecada laga helay dhulka dhirta laga xaalufiyeyna waxa ay 278 jeer ka qaniinyo badnayd kaneecada dhulka 30% keliya laga xaalufiyey. Si kastaba ha ahaatee, dhir jariddu waxa ay hoos u dhac weyn u geysataa habitat-ka ay xayawaanku quutaan. Daraasad kaloo la sameeyey waxaa iyana lagu ogaaday in goobaha dhirta laga jaray ay ka roob yaraadeen goobaha aan dhirta laga jarin.
taasna waxa ay khubaradu ku sheegeen in dhirtu ay qayb ku biiriyaan habwareegga biyaha iyo habka uu roobku u samaysmo. Tusaale, dhirtu waxa ay biyo ka sii daayaan caleemahooda, biyahaasuna waxa ay noqdaan uumi. Habkan waxa uu u dhacaa markii ay dhirtu samaysanayaan cuntadooda ee loo yaqaano photosynthesis-ka. Jiritaanka dhirtu waxa ay muhiimad weyn u leedahay habka ay isula falgalaan dhulka, gibilka hawada sare iyo cadceeddu. Falgalkanina waxa uu u dhacaa laba nooc oo kala ah. Dhirtu waxa ay leeyihiin midabyo kala duwan oo ay ku nuugaan tiro badan oo ka mid ah kulaylka faraha badan ee ay cadceeddu bixiso. Dhirtu waxa ay bixiyaan hawada loo yaqaano oksijiinka ee bini'aadamku neefsado, waxa ayna kaydiyaan oo qaadataa hawada kaarboonka ee nooluhu aanay qaadan karin. Maanta intaasaan kusoo koobayaa barnaamijkeenna. Insha Allahu la socda qaybaha kale.